Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah u daahfuray Guddiga Nabadda xaflad saxiix ahna ku qabtay magaalada Davos. Khudbad ku dhow 20 daqiiqo oo ka jeediyay kahor inta uusan saxiixin axdiga Guddiga Nabadda, ayuu Trump si xamaasad leh uga hadlay qodobadii ugu caanka ahaa. Madaxweynaha ayaa sheegay, "Waxaan Gaza ka gaari doonaa guul weyn," isagoo intaasi ku daray in hub ka dhigi doono Gaza, isla markaana dib loo dhisi doono si qurux badan oo hagaagsan, ayuu yiri. Sidoo kale Trump wuxuu ku andacooday in kastoo ay xaqiiqdu ka duwan tahay in Mareykanku ilaaliyay xabad joojinta Gaza, gaarsiiyay gargaar bini'aadanimo oo rikoor ah, isla markaana aan mar dambe la maqlaynin in Falastiiniyiinta Gaza ay gaajo u dhimanayaan. Dhab ahaantii Israa'iil ayaa si joogto ah u jabisay xabad joojinta, iyadoo dishay in ka badan 480 Falastiiniyiin ah, isla markaana carqaladaysay gaarsiinta gargaarka. Trump wuxuu kaloo sheegay in dunida maanta ay tahay mid ka hodansan, ka ammaan badan, kana nabad badan sidii ay ahayd kahor inta uusan bilaabin xilkiisa labaad, isagoo tahay colaado caalami ah uu ku andacooday inuu dhameeyay. Qodobka xiga ee Trump farta ku fiiqay wuxuu ahaa Xisbullah ee Lubnaan, isagoo hadalkaasi sii watay ayuu yiri, "Arrintaasi waa inaan wax ka qabanaa." Trump sidoo kale wuxuu dhaliil u jeediyay Qaramada Midoobay, isagoo kaftan ku sheegay inay leedahay awood aad u weyn, balse uu ku daray, "Marna lama aanan tashanin Qaramada Midoobay. 8 colaadood ee aan doonayay inaan xalliyo." Iyadoo sanadkii ugu horeeyay ee xilkiisa labaad uu dhamaaday, Trump wuxuu ku celceliyay hadalkiisa caadiga ahaa in maamul aan weligiis la arag uusan hal sano gudaheeda ku sameyn isbedel intaa la eg, wuxuuna ku faanay xaaladda dhaqaalaha Mareykanka. Rubio oo amaanay geesinimada Trump ee riyada aan suuragalka loo arkin. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa ka hadlay shirka Guddiga Nabadda ee Davos kadib Trump, iyadoo madaxweynuhu fadhiyay bartamaha wufuud ka kala socotay 19 dal oo saxiixay axdiga. Rubio wuxuu sheegay in Trump uu diyaar u yahay inuu la hadlo qof kasta haddii ay taasi horseedayso nabadda. "Waxaan maanta halkan u joognaa aragtida madaxweyne Donald Trump," ayuu Rubio yiri. Wuxuu intaasi ku daray in dhowr bilood ka hor dad badani ay u arkayeen xalinta colaadaha socda inay tahay waxaan suuragal ahayn, isla markaana cidna ma filaynin in arrintan la haysto ee Gaza xal laga gaaro. Rubio wuxuu ku dooday in hay'adihii jiray ay ku fashilmeen wax ka qabashada colaadaha, halka Trump uu leeyahay aragti fog iyo geesinimo uu ku riyoon karo waxaan suurtagal ahayn u muuqaal. Trump iyo hogaamiyaasha kale oo saxiixay axdiga Guddiga Nabadda. Trump waxaa miiska saxiixa kula jiray hogaamiyaasha Bahrain iyo Morocco, si rasmi ahna loogu bilaabay saxiixa axdiga. "Waxaan qabanaynaa wax aad muhiim u ah," ayuu yiri Trump. "Arrintan si gaar ah ayaan u rabay inaan u imaado, mana jirto meel ku habboon Davos." Trump ayaa qalinka qaatay, saxiixayna dukumeentiyo badan, kadibna si farxad leh ugu muujiyay kaamirada hogaamiyaasha kale ee caalamka markaasi laba u yimid si ay iyaguna u saxiixaan. Trump oo amaanay weeraradii Iran kuna celiyay sheegashadiisa 8 dagaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyay sheegashadiisa ah inuu xaliyay 8 dagaal tan iyo markii uu xafiiska ku soo noqday. Isagoo ka hadlay Davos, Trump wuxuu xusay weeraro Mareykanka ku qaaday xarumo nukliyeer oo Iran ku taala bishii Juun la soo dhaafay, isagoo ku andacooday inay si buuxda u burburiyeen awoodda nukliyeerka Iran. Wuxuu intaasi ku daray in Tehran doonayso wada hadal, isla markaana ay wada hadli doonaan. Trump wuxuu sidoo kale ka hadlay howlgallada Mareykanka ee ka dhanka ah ISIS ee Suuriya, isagoo sheegay in waxyaabo badan oo wanaagsan ay socdaan, isla markaana hanjabaadihii ka dhanka ah Yurub, Mareykanka iyo Bariga Dhexe si weyn ay u degan yihiin. "Hal sano ka hor dunidu dab bay ahayd," ayuu yiri. "Dad badan xitaa ma ogeen." Trump 59 dal ayaa ku lug leh dadaalada nabadda Bariga Dhexe. Hadallada Trump ayaa muujinaya in 59 dal ay taageero muujiyeen hindisaha Guddiga Nabadda. Isagoo ka hadlay Gaza ayuu yiri, "Haddii Xamaas aysan fulinin wixii ay ballan qaadeen, inkastoo aan filayo inay sameyn doonaan, laakiin hub bay ku dhasheen." Wuxuu raaciyay, "Waa inay hub ka dhigaan, haddii kale taasi waxay noqon doontaa dhammaadkooda." Trump qof walba wuxuu doonayaa inuu ku biro Guddiga Nabadda. Trump ayaa mar kale ka hadlay Davos, isagoo sheegay in qof walba doonayo inuu ka mid noqdo Guddiga Nabadda, wuxuuna intaasi ku daray inuu sii wadi doono la shaqaynta dhinacyo badan oo ay ku jirto Qaramada Midoobay.
Haddaba waa maxay guddiga nabadda ee Trump yaase ilaa hadda ku biiray? Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa casuumay hogaamiyayaal caalami oo tiro badan si ay ugu biiraan guddiga nabadda ee uu aasaasay, kaas oo loogu talagalay in lagu xalliyo khilaafaadka caalamiga. Laakiin diblomaasiyiinta qaar waxay ka digeen in tallaabadan ay dhaawici karto shaqada qaramada midoobay. Inkastoo qaar ka mid ah xulafada dhaqanka ee Mareykanka ay si taxadar leh uga jawaabeen isla markaana qaar diideen casuumadda Trump, waxaa jira dalal muddo dheer xiriirkooda xumaa Washington sida Belarus oo aqbashay casuumadda. Waa maxay guddiga nabadda ee Trump? Trump wuxuu markii ugu horeysay soo jeediyay guddiga nabadda bishii September sanadkii hore markuu shaaca ka qaaday qorshihiisa uu ku joojinayo dagaalka Gaza, wuxuuna cadeeyay in guddiga ka shaqeyn doono nabadda caalamka oo dhan isagoo ka baxsanaya xaddiga Gaza. Madaxweynuhu wuxuu noqon doonaa guddoomiyaha guddiga markii ugu horeysay, waxaana guddigu mas'uul ka noqon doonaa kor u qaadidda nabadda caalamka iyo xalinta khilaafaadka sida ku cad nuqul ka mid ah dastuurka guddiga oo ay aragtay Reuters. Dalalka xubnaha ka noqonaya ayaa xilliyada qaar ku koobnaan doona 3 sano ilaa iyo ay bixiyaan $1 bilyan si ay u maalgeliso howlaha guddiga una hesho xubinimo joogto ah. Aqalka Cad ayaa magacaabay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio, wakiilka gaarka ah ee Trump Steve Witkoff, ra'iisul wasaarihii hore Britain Tony Blair, iyo wiilka xaaska Trump Jared Kushner sida xubnaha guddiga fulinta aasaasiga ah. Dalalka ilaa iyo hadda aqbalay casuumadda Trump, sarkaal sare oo ka tirsan Aqalka Cad ayaa sheegay in ilaa iyo 35 hogaamiye caalami ay ku biiraan guddiga iyadoo 50 casuumad la diray. Waxaa ka mid ah xulafada Bariga Dhexe sida Israa'iil, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Urdun, Qatar iyo Masar, iyo dalalka NATO sida Turkiya, Hungary oo hogaamiyaashooda xiriir wanaagsan la leeyihiin Trump. Sidoo kale waxaa ogolaaday Morocco, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay iyo Vietnam ayaa qayb ka noqon doona. Dalalka kale ee aqbalay waxaa ka mid ah Armenia, Azerbaijan oo heshiis nabadeed Mareykanka ka gaadhay Agoosto sanadkii hore kadib markii ay kula kulmeen Trump Aqalka Cad. Si xiiso leh, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko oo muddo dheer laga cagajiidayay galbeedka sababo la xiriira xuquuqda aadanaha iyo taageerada uu siiyay dagaalka Ruushka ee Ukraine, ayaa aqbalay casuumadda Trump, taasoo imaanaysa xilli dib u soo dhaweyn ka dhex socotay Washington iyo Minsk. Ruushka oo sidoo kale xiriir uu la lahaa Washington oo isbedel muuqda sameeyay iyadoo Trump uu isku dayay inuu la xiriiro madaxweynaha Vladimir Putin, weli ma sheegin inuu ku biiri doono guddiga. Shiinaha oo marar badan isku khilaafay Trump ayaa sidoo kale weli aan cadeynin go'aankooda. Labaduba waxay leeyihiin cod veto ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay ka feejignaadaan tallaabo kasta oo laga yaabo in ay awoodooda weji ka dhigto mid hooseysa. Trump oo badanaa qaramada midoobay ku eedeeyay inay waxtar la yihiin, wuxuu sheegay toddobaadkan inuusan guddigiisu bedeli doonin hay'adaha caalamiga ah, isagoo yiri waxaanu maleynaynaa in la sii daayo qaramada midoobay maxaa yeelay fursaddu waa ay weyn tahay. Dalalka diiday ama aan weli go'aan gaarin guddiga nabadda oo kusoo beegmaya khilaaf sii kordhaya oo u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub oo ku saabsan Greenland, canshuuraha iyo arrimo kale, wuxuu ka helay jawaab taxadar leh qaar ka mid ah xulafada dhow ee Mareykanka, kuwaas oo mararka qaar ka cabsada habdhaqanka Trump ee dagaal qaadka ah, kelitalisnimada, American First iyo siyaasadda diblomaasiyadda. Norway iyo Sweden ayaa diiday casuumadda, halka wasiirka dhaqaalaha Talyaaniga uu sheegay in guddiga ku biiristu ay dhibaato noqon karto. Maalinlaha Talyaaniga I Corriere della Sera ayaa ka warbixiyay in ku biiridda koox uu hogaamiyo hal dal ay ka hor imaanayso dastuurka Talyaaniga. Faransiiska ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu diido casuumadda sida uu sheegay qof u dhow madaxweyne Emmanuel Macron, taasoo keentay inuu Trump ku hanjabo inuu saari doono khamriga iyo shaambeenka canshuur gaaraysa ilaa iyo 200% haddii Paris uusan guddigiisa ku biirin. Canada waxay sheegtay in mabaadi ahaan ogoshahay ku biirista, balse faahfaahinta weli waa la diyaarinayaa. Xulafada kale ee muhiimka ah sida Britain, Jarmalka iyo Japan weli ma aysan qaadanin go'aan cad oo dadweyne ah. Inkastoo hadal ka soo baxay dowladda Jarmalka uu sheegay in Chancellor Friedrich uusan ka qaybgeli doonin xaflad saxiixa guddiga ee Davos, Ukraine waxay sheegtay in diblomaasiyadeedu ay baarayaan casuumadda. Hase yeeshee, madaxweynaha Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in ay adag tahay inuu ka mid noqdo guddi ay Ruushka ku jirto kadib 4 sano oo dagaal ah. Bob Liu oo ah baabaga Mareykanka ugu horeeya iyo dhaliilaha qaar ka mid ah siyaasadaha Trump ayaa sidoo kale la casuumay, waxaana Vaticanka ku sheegay inuu qiimeynayo soo jeedinta. Haddaba waa maxay awoodda guddiga?
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay bishii November wuxuu ansixiyay Guddiga Nabadda, laakiin ilaa iyo 2027 oo kaliya, isla markaana xooga saarayo Gaza oo kaliya. Ruushka iyo Shiinaha ayaa ka aamustay iyagoo ku eeday in qaraarka Mareykanka uu diyaaray uusan si cad u qeexi doonin ama u qeexin doorka Qaramada Midoobay mustaqbalka Gaza. Qaraarku wuxuu soo dhaweeyay aasaaska Guddiga Nabadda sida maamulka ku meel gaarka ee dejin doono qaab dhismeedka, isla markaana isku dubridi doono maalgelinta dib u dhiska Gaza ilaa iyo maamulka Falastiin uu si isku filan u sameeyo dib u habeyn. Waxaa sidoo kale guddiga loo ogolaaday inuu ku sugo ciidamo ku meel gaar ah oo caalami ah Gaza. Guddigu waa inuu Golaha Ammaanka ee 15 xubnood ku soo warbixiyaa 6 bilood marba. Marka laga soo tago Gaza, weli lama cadeynin awoodda sharciyeed ama qalabka fulinta ee guddiga yeelan doono iyo sida uu ula shaqeyn doono Qaramada Midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah. Dastuurka guddiga wuxuu sheegayaa in guddoomiyaha Trump uu awood ballaaran u leeyahay oo ay ku jiraan awoodda uu ku diidi karo go'aanada iyo inuu ka saaro xubnaha iyadoo la eegayo xeerarka qaraar. Sida ku cad dastuurka, guddiga wuxuu fulin doonaa howl dhisid nabadda iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah. Dhanka kale, Israa'iil ayaa duqeysay 4 goobood oo xuduudda u dhaxaysa Suuriya iyo Lebanon. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 4 goobood oo xuduudda Syria iyo Lebanon ay bartilmaameedsadeen, kuwaas oo ku eedeeyeen in Hezbollah u adeegsadeen in ay hub ku soo geliyaan dalka. Weerarkan wuxuu ku soo beegmay kadib duqeymo hore oo koonfurta Lebanon lagu qaaday, kuwaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 2 qof iyo ku dhawaad dhaawac 20 kale ah. Falalkan ugu dambeeyay Israa'iil oo dhacay Arbaco waxay ka dambeeyeen xabad joojin oo Mareykanka dhexdhexaadiyay, taas oo joojisay in ka badan sanad oo dagaal u dhaxeeya Israa'iil iyo dagaalyahanada Hezbollah ee Lebanon sanadii 2024. Hase yeeshee, Israa'iil ayaa marar badan jebisay heshiiskaas. Madaxweynaha Lebanon Joseph Aoun ayaa sheegay mar kale Israa'iil waxay ku dhaqaaqday siyaasadda colaadda nidaamsan iyadoo duqeymaha cirka ka geysanaya tuulooyinka la degan yahay ee Lebanon, taas oo ah kordhin khatar ah oo si toos ah u beegsanaya shacabka. Madaxweynaha ayaa intaa ku daray, dhaqankan soo noqnoqday wuxuu cadeynayaa in Israa'iil ay diidan tahay in ay u hoggaansanto waajibaadka ka dhashay heshiiska xabad joojinta. Wasaaradda Caafimaadka Lebanon ayaa sheegtay in ugu yaraan 19 qof lagu dhaawacay duqeymo cirka oo lagu qaaday magaalada Qanaariid ee koonfurta Lebanon. Wakaaladda wararka qaranka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen dhismayaal ku yaala tuulooyin iyo magaalooyin badan oo koonfurta Lebanon oo ay ka mid yihiin Al-Kharayb, Al-Ansar, Qanaariid, Kafoor iyo Jarjah, kadib markii ciidanka Israa'iil ay digniin u direen in ay weerari doonaan goobo gudaha ku yaala. Horudhaca wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in duqeyn Israa'iil ku beegsatay gaari magaalada Zahrani ee degmada Zaid ay ku dishay 1 qof, halka duqeymo kale oo magaalada Masuuriya ee degmada Tyre lagu dilay qof kale. Wakaaladda AFP waxay soo sheegtay in wariyaheeda uu arkay gaari gubtay oo jid weyn yaala iyo burbur ku fidsan deegaanka. Sidoo kale, shaqaalaha gurmadka ayaa goobta joogeen. Sidoo kale, sawir-qaade ka tirsan wakaaladda ayaa si fudud u dhaawacmay. Sidoo kalena 2 wariye oo kale ayaa ku dhaawacmay meel u dhow Qanaariid, halkaas oo 19 qof lagu dhaawacay. Ciidanka Israa'iil ayaa baraha bulshada ku sheegay in 4 goobood oo xuduudda Suuriya iyo Lebanon ay bartilmaameedsadeen, kuwaas oo hub u gudbiya, isla markaana ay baabi'iyeen qof muhiim u ahaa saarista hubka Hezbollah ee Saida. Ciidanka Lebanon ayaa cambaareeyay weerarada iyagoo sheegay inay beegsanayaan dhismayaal iyo guryo shacab, isla markaana ay ku xadgudbayaan heshiiska xabad joojinta. Ciidanka Lebanon ayaa intaa ku daray in weeraradan ay caqabad ku yihiin dadaalada dowladda ee hubka Hezbollah looga qaadayo, taasoo qayb ka ah heshiiska xabad joojinta. Hezbollah ayaa diiday in hubkeeda dhiibto, iyadoo sheegtay in weerarada Israa'iil ay sii socon doonaan ama ay sii socdaan, taasoo ilaa iyo hadda ku dhisan in ka badan 350 qof oo Lebanon ah. Inkastoo heshiiska xabad joojinta la saxiixay bishii November 2024 sida lagu xusay tiro koob dhaawacyada iyo dhimashada, wakaaladda wararka AFP u xaqiijiyeen.